labadii boqol ee neef ee loogu yaboohay maxay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maalinta dhaweeytay dad ka soo horjeedo oo dhaliilayo oo maxaa loogu ururinayaa ayaaba arkay kuwaana waxaan leeyahay war adeer ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 200 iyo maxay ahaydaan 5,000 wax ka badan ayay inooga qalmaan maxay ahaydaan inaga ahaan way nabada aynu ku seexano cid sugti maxay ahaydaan waa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada kamid ah ku dhintay Allah u naxariistaan leeyahay ilaahay naxariistii janno ka waraabiyaan leeyahay kuwa ku dhaawacmayna waxaan leeyahay ilaahay ha u boogadhayo waa maxay ahaydaan mujaahidiin qarankooda difaacayay waa mujaahidiin qarannimada maxay ahaydaan Soomaaliland u dhintay kuwa dhintay kuwa noolna u dhaawacmay weey garaadada horgalayaasha waxaan leeyahay adeer ma dhaqanka nidaamkii hawlaha soo mara oo wax walba maxay ahaydaan wuxuu dhaqanku ku dayaxal iyo namadeyn iyo odaytinimo ee kuma dayo qori inuu qaato horgala maxay ahaydaan shacabkiisa Shirwa Ali Shirwa oo kamida siyaasiyiinta daada yar ee gobolkan Awdal ayaa maruu la hadlay warbaahinta Boorama Cable waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira guud ahaan baxaaradaha Soomaaliland ka taagan gaar ahaan Laascaanood waxaanu fariin u diray siyaasigu dhalinyarada gobolkan Awdal dabcan siyaasigu waxa uu soo dhaweeyay xabajoojintii ay ku dhawaaqday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Shirwa ayaa dhinaca kale waxa uu jawaabay mid kamid ah garaadada magaalada Laascaanood oo reer Boorama ku eedeeyay 200 ee neef ay ku deeqeen ciidanka qaranka Soomaaliland Shirwa Ali Shirwa oo amurahaasi tafaasiil dheeraad ka bixinaya waxa uu yiri inamada jaamacadda Camud dhiganayay ee gobolada ka soo jeedo Laascaanood iyo Cayn oo maalmihii u dambeeyay runtii maxay ahaydaan qaxayay oo cid handadaad ama hanjabo ama maxay ahaydaan cagajugleyn u geysatayna jirin cid maxay ahaydaan wax weydiisahayna jirin adana sawir khaldan maxay ahaydaan ka bixiyay magaalada waxaan ka leeyahay inamada horta cid maxay ahaydaan wax weydiisay maxay ahaydaan habeeraatee ma jirto reer Awdalna waa dad maganta iyo maxay ahaydaan martida intaba dhowr oo jecel weey inamada iyo maxay ahaydaan dadka gobolada ka soo jeeday deganaa gobolka Awdal ee qaxay waxaan leeyahay wax maxay ahaydaan beesha Gadabuursi ama gobolka Awdal waxaan dadaada ama hanjaba ama dagaal oo uga imatay habeeraatee horta ma jirto waxaan leeyahay namada qaxay ilma adeerayaal iniga oo wax leynii geysan in namayro qurba jooga hayni waalan oo sawir khaldan laga bixiyo ina waa mushkilad taas waa gaf weeye waxaan leeyahay runtii waa gunnimo waxaan nii qurux badnayn anagna noo qurux badnayn inaad noo qaadaana maxay ahaydaan waa gaf weeye taayada taasaan leeyahay reer Awdal kelmad baan faraya kelmadaas oo ah war qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland waynu ku dhex milanay waxaynu nahay reerihii dhidibada u taagay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland dhidibada maanta uu ku taagan yahay reerihii u taagaynu nahay taabay naga galay waqti naga galay maal bay naga galay meelahaynu ka soo noqonay inaga maanta ma jirto marka reer Awdal waxaan leeyahay dib iyo dheefa wixii qaranka la soo gudboonaado inaynu la qaybsano waa waajib waa maxay ahaydaan waajibaad in saaran weey ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maqlayay xalay ilaa maanta 200 ee neef ee loogu yaboohay maxay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maalinta dhaweeytay dad ka soo horjeedo oo dhaliilayo oo maxay ahaydaan maxaa loogu ururinayaa ayaaba arkay kuwaana waxaan leeyahay war adeer ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 200 iyo maxay ahaydaan 5,000 wax ka badan ayay inooga qalmaan maxay ahaydaan inaga ahaan
way nabada aynu ku seexano cidda sugti maxaydan waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay marka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wax walba oo maxay ahaydaan gargaar ah haddii ay noqoto gurmad haddii ay noqoto sahay gobolka Awdal in diyaar ha u leeyahay ayaan horta u sheegay inta taa markaan kaga imaado laascaanood dibta ka dhacday way noognahay qasaarahana way noognahay dagaalna horta runtii maxay ahaydaan wiilun baa ku dhintay wiil kuma dhasho xalay xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo saartay xabad joojin waa ku ambalyeynaya waa maxay ahaydaan talaabo wanaagsan oo ay qaadeen xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garoodanka uu ka yahay madaxweyne Muuse ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamo kamida ku dhintay Allah u naxariistaan leeyahay ilaahay naxariistii janno aka waraabiyaan leeyahay kuwa ku dhaawacmayna waxaan leeyahay ilaahay ha u boogadhayo waa maxay ahaydaan mujaahidiin qarankooda difaacayay waa mujaahidiin qarannimada maxay ahaydaan Soomaaliland u dhintay kuwii dhintay kuwa noolna u dhaawacmay weey beesha dhulmaante waxa kaga dhintay runtii iyagna maxay ahaydaan dagaalada dad iyagna Allah u naxariisto ayaan leeyahay kuwa ka dhaawacmayna Allah u boogadhayaan leeyahay laakiin garaadada kelmad baan farayaayo kelmadaan farayaa ah dhaqanka waxa lagu yaqaanay isku jiid iyo maxay ahaydaan geed iyo nabad garaad ku baaqaya dagaal maanta horta lama arag dhaqankana madnuuc bay ka tahay garaadada horgalayaasha waxaan leeyahay adeer ma dhaqanka nidaamkii hawlaha soo mara oo wax walba maxay ahaydaan wuxuu dhaqanku ku dayaxal iyo namadeyn iyo odaytinimo ee kuma dayo qori inuu qaato horgala maxay ahaydaan shacabkiisa waxaan leeyahay marka garaadada warama koofiyadaha dhiga oo qoriyaha qaad ama maxay ahaydaan dhaqanku qiimihii iyo sharaftii hawlaha ku soo noqdo xal hawsha iyada ku soo dabaala horta dagaalku waa labo waa weerar iyo difaac ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland san ka warqabno saaka iyagoo maxay ahaydaan talisadooda joogo in lagu soo qaaday weerar way xal ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba joogo waxa lagu wargeliyay xabad joojin degdeg iyagoo hubka dhulka dhigay oo saaka maxay ahaydaan iska waabariisanayo ayaa lagu soo bilaabay nuuxu walaal maxay ahaydaan weerar inay isdifaacaana xaq bay u leeyihiin oo maxay ahaydaan nin ku soo doontay u jiifi maysid waxa keentay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay dagaalamaan maanta weerar markii lagu soo qaaday iyagna way difaactamayaan qaranka u difaactamayaan waxayna maxay ahaydaan la difaacay la dagaalamayaan ragga argagixisada marka meesha argagixisada joogto mise shacabka dagaalamay runtii horta waa la oran karaa shacab laakiin waxyaalo kale ayaa ku dhex jira nuuxow shacab sheekadan way dhaafsan tahay way shacabku intaa huba sidoo kale kare way adag tahay waxa la sheegayaa ciidamo Puntland kamida in hay maxay ahaydaan ka dagaalamayaan laascaanood ciidamo maxay ahaydaan Soomaaliya kamida inay ka dagaalamayaan laascaanood marka anigu ma orani karo waa shacab laakiin waa argagixis ayaan leeyahay waa hagaag saaka waxa hadiyay in garaada oo magaalada laascaanood joogay waxa uu eedeymo soo jeeday beelaha gadabursi oo ku eedeeyay inay yacan 200 oo neef ku taakuleynayaan ciidanka Soomaaliland arrintaasna la iska daba tagi doono ninka garaadka ahi marka shuruucow nimankaasi beesha dhulbaanta ka soo jeeda waxay aaminsan yihiin gadabursi maanta isma haynee isaaq baanu saynaayay maxaa iyaga soo dhexgeliyay bal arrinta siyaasi ahaan maxaad kaga jawaabaysaa nuuxu Soomaalidu waxay tisaadaa ab oodi ka dhow innaga samaroon ahaan iyo maxay ahaydaan beesha dhulmaantay walaalaheena way noo kala dhow yihiin isaaq leeyahay bay noo dooray waa jaarkeena koobaad weey dambaa inaga dhaxayso
qaran baa inaga dhaxeeyo maxay ahaydaan xidid baynu nahay gacal baynu nahay sinaana inagu maanta kuma kala tagaynaa hadii aynu Samaroon iyo reer Sheekh Saaq qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland in maxay ahaydaan 200 oo neef hay ugu deeqaan beesha Gadaguursi oo laga ururiyo gobolka inaan maxay ahaydaan cidnaana taa horta iyada lagu weydiin maayo garaadkana waxaan leeyahay marka uu leeyahay cid baan isaynaa qaranka adeer maxay inaan hadsaysaan ayuu reer Sheekh Samaroon kamid yahay intaasan garaadkana walaalno wuxuu leeyahay waa nuux kadii warbaahinta Boorama Cable gobolka Awdal